bulshada ku nool gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax horeyna waxa gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland kadib markuu saxaasay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna musharaxa xisbiga wadani hadaba bulshada ku nool gobolka Sool khaasatan degmada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa guusha ku guuleystay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax gudoomiye khayr iyo barakaan ku rajaynayna xilka aad hayso horena aad u haysay gudoomiye ku xigeenka golaha baarlamaanka maantana aad noqotay gudoomiyaha baarlamaanka aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa doorashada la doortay gudoomiyaha baarlamaanka Baashe Maxamed aad baan u soo dhaweynaynaa waa hambalyeena waa taageersanahay boqolkiiba 90 maanu si heer sare oo la shaqeynayno waxaan halkan ugu hambalyeenayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax oo ku guuleystay tartankii maanta oo la galay Maxamed Xayanle waxaan leeyahay ilka culus oo garab garo waxaan halkan ugu hambalyeenayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay waa guul soo hoyatay dhammaan ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda ku dhaqan gobolada Sool iyo gobolada SSC iyo wadariya gudoomiyaha cusub horena u ahaa gudoomiyaha Baashe Maxamed Faarax gudoomiye marka horeysay waa malyan ku soo dirayna hadaan nahay mujtamaca ku nool gobolka Sool dhamaanteedba waan ku habooneed maanta aad iyo aad bad kaalintaas hadaan reer Sool nahay iyo hadii baydmayo Sool iyo Sanaag iyo Cayn gobolada bariga aad baan ku soo dhaweynaynaa aad baan raal uga nahay wax qabadkaaga horena waa ogeyn haddana nahay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxaan aad u soo dhaweynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax oo loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland waxaan balyeynaa maanta gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Baashe Maxamed Cade waa nin weyn oo oday soo shaqeeyay afka dhalinyarada gobolka Sool ku hadlaya waxaan aad ugu hambalyeenayaa gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee saaka la doortay Alisaydi oo halka cod ku guuleystay Baashe Maxamed Cade waxaan leenahay guul gobonimo ku leenahay wada shaqeyn wanaagsan ma ku rajaynaa insha Allah Khadar Maxamed Cabdi SNTV